soo dhawaada jaalayaal teamkan waa beta squad waxay sameynayaan challenge-ga last to fall asleep ninka ugu dambeeya ee seexda ayaana guuleysan doona horey waxa challenge noocan ah u sameeyay youtuber-ka caanka ah ee Asad Hajiyo balse kan waxa ku sii dhex jira challenge-yo kale hadaba jaale isku day inaad muuqaalka ila dhameysato si aad u ogaato guuleystaha dhammaantood waxa la isugu keenay qol wada cad sharciyada u yaala challenge-gan ayaa ah kow haddii indhahaaga ay xirnaadaan muddo 10 sekan ah waxay la micno tahay inaad guuldareysatay oo aad seexatay wax mobile ahna lama isticmaalayo sidoo kale cunno iyo cabitaan waa ka tartanka isla marka ay muuqaalka sameynayaan waa mar ay wada daalan yihiin sababtoo ah waxay hore u soo duubeen muuqaalo kale kadibna si toos ah ay qolkan u soo galeen waxaan sugnaaba waa qofka ugu dambeeya ee aan seexan markuu challenge-ga bilowday iyagoo iska ciyaaraya Chance wuxuu iska dhigay inuu seexday kadib far ay u fiirinayaan markii loo tiriyay sekanada uu indhaha isku hayay 4 sekan ayuu noqotay sidaas ayuuna ku badbaaday si daalka loogu siyaadiyo waxa qolka ugu soo galaya nin murqa waaweyn kaas oo u sheegaya inay yimaadaan qolka gym-ka waxyaabo kala duwan ayuu u diraa si ay u daalaan kadibna ciyo way u seexdaan markay caalamiintada u dhamaato dib ayay ugu laabtaan qolkii uu challenge-ga ka socday maadaama aysan haysan mobile ay waqtiga isku dhaafiyaan way caajiseen laakiin Nico ayaa keenay fikradaha in dhalada ay ku shiishaan qoryahan yaryar isku daygii ugu horeeyay AJ ayaa ku dhawaaday inuu guuleysto balse ma haleelin mar kale waxa qolka u soo galaya nin u labisan sidii askarta waxay la ciyaarayaan game-kii hide and seek oo ah inay guriga meel kaga dhuuntaan kadibna uu isaga soo saaro qofkii la soo qabtana waa la ciqaabi doona 10 daqiiqo ayaa la siyaasi ay isku qariyaan qof walbana wuxuu dadaal u galaa inuu isqariyo si aan loo soo helin AJ fikradii ugu fiicneed ayuu sameeyay wuxuu ku dhuuntay qolkii laga maamulayay kaamirooyinka isagoo xirtay dhar ka duwan kuwii uu horey u sitay Nico isagana wuxuu hoosgalay sariirta Shark sameel adag kuma uusan dhuuman waxaana dhamaaday 10 daqiiqo waana xilligii uu howlgali lahaa askariga Chance wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee la qabtay isla qolkii askariga haddana waxa uu ka soo saaray Philly waxaa markan u harsan Kenny Sharky Nicky iyo AJ Sharky ayaa xigay oo isna waa la soo qabtay Kenny booska ayuu u bedeshay askariga soo laabashadiisii wuxuu bilaabay inuu sariiraha hoostooda baaro taasna Nico ayay fashil ku noqonaysaa sidaas ayaana lagu qabanayaa markan Kenny ayay ku imaatay waxa kaliya hadda harsan waa AJ inta uu soo dhunto ayuu ku soo biiraa teamkii hore loo soo qabtay isaga ayaana guuleystay challenge-gii labaadna sidaas ayuu ugu soo idlaaday intay meesha fadhiyeen Philly ayaa indhaha isku hayay in ka badan 10 sekan AJ ayaa fashilay markii far loo fiiriyayna banaanka ayaa looga saaray ciyaarta asxaabtiisa ayuu macsalaameeyaa buuna iska baxaa challenge-ga saddexaad waxaa la ciqaabayaa Chance maadaama uu isaga ahaa qofka ugu horeeyay ee la soo qabtay ciqaabtiisa waxay ahayd inuu seexdo qol si wanaagsan loo diyaariyay oo mugdi ah wuxuuna halkaas ku jiri doonaa hal saac haddii uu seexdana sidaas ayuu game-ka uga baxayaa AJ waxaa lagu hambaliyayaa maadaama isaga aan la soo qaban waxaana loo sheegaa in hadiyad loo hayo waxaana loo sheegaa inuu qolka albaabkiisa ka soo qaato waxaa loo keenay sanduuq lagu soo keydiyay cabitaan energy drink ah wuu ku farxaa asxaabtiisana waxay ka codsadaan inuu wax ka siiyo balse wuu u diiday waxaa loo sheegaa inay aadaan miiska cunnada kahor intaysan aadin afartooda waa inay kala qabsadaan nambarada kale ah 1 ilaa 4 Nico 1 ayuu qabsaday Sharkina 2 Kenny 3 AJ-na 4 waxaa meesha ugu diyaarsan chicken kala badan qofka ugu dambeeya ee dhameen waaya wuxuu mari doonaa ciqaab Shark ayaana noqday qofka haray Chance weli ma seexan saddexda kalena waxay dib ugu laabteen qolkooda waxay iska camirteen game dhexdooda ah maadaama ay energy fiican hayaan AJ xanja ayuu qolka ka helay teamkana waxay ka baryaan inuu u qaybiyo oo uusan kaligiisa cunin laakiin waxba kama siin waxayna bilaabeen inay ku kacaan Chance halkii saac uu dhameystay mana seexan teamkana way la yaabaan in Chance aysan hurdo la tagin Sharky maadaama uu ahaa qofka ugu dambeeyay ee chicken cunista wuxuu ciqaab ahaan u maraa inuu markiisa tago qolkii uu Chance ka soo badbaaday intay galbiyaan ayay isaga soo laabtaan Nico iyo AJ waxay Kenny uga shakiyaan inuu seexday wayna dhaariyaan nasiib wanaag uu ka soo badbaaday isagana qolkii challenge-ga saddexaad waxaa loo keenay cabitaan qofkii caba uu hurdo ka keenayo waxayna kaliya cabi doonaan markii loo ogolaado hal mar ayay wada bilaabi doonaan qofka ugu dambeeya ee laga hor cabo wuxuu ciqaab ahaan u soo mari doonaa qolkii hurdada waa loo fasaxay inay cabaan Sharky ayaana aadi doona qolka jiifka maadaama isaga laga guuleystay markanna waxay galbinayaan Sharky oo u muuqda mid aan dib u soo laabanayn Sharky wuu ku daayay teamkana isaga ayay u tagayaan wayna soo macsalaameynayaan challenge-ga xiga waxaa loo balamiyay nin caajis badan si uu iyagana uga dhigo kuwa caajisa kadibna seexda inta uu sheekeynayo waxaa laga rabaa inay la socdaan waxa uu ka hadlayo marka uu dhameysto su'aalo ayuu weydiin doonaa qofkii ugu dhibcay yaraada ayaan ciqaab ahaan u maraya inuu seexdo qolka hurdada markay sheekadii dhamaatay su'aalo ayuu bilaabay inuu weydiiyo AJ ayaa noqday qofka ugu dhibcahaya sidaas darteed wuxuu ciqaab ahaan u marayaa inuu seexdo qolka hurdada waana la soo galbiyey markan caajis ayaa ku siyaaday dhammaantooda Kenny ayayna la tagtay hurdada Chancena goobjoog ayuu ka ahaa markan 3 ayaa isku soo hartay AJ-na qolkii uu ka soo badbaaday challenge-ga kale ayay haddana galayaan qolka fadhiga ayay isugu yimaadeen sanduuqan waxaa ku jira 2,000 oo pound qofkii game-ka isaga baxa ayaa horey u qaadanaya balse saddexdoodaba way diideen lacagta challenge-ga kale isla qolkii ayaa lagu soo celiyaa waxaa hortooda la marsiin doonaa 15 shay waxaa laga rabaa inay xasuustaan markii 15 shay ay dhamaadaan waxaa fursad loo siin doonaa inay qoraan inta shay ay xasuustaan Chance ayaa dhibcaha ugu badan helaya AJ ayaa ku xiga Nico ayaana ugu dhibcayar
Janks waxaa fursad loo siinaa inuu doorto meesha uu jecel yahay inuu ku sugnaado. Qolkii weynaa ayuuna doortay, halka AJ uu jiimka doortay. Dhammaan meelaha ay kala doorteen ayay kala seexan doonaan, halka Nico uu seexan doono qolka hurdada. Waxaana la demin doonaa dhammaan nalalka si midkood ay hurdo ula tagto. Mid walba wuxuu isku maaweelinayay la hadalka naftiisa si uusan u seexan. Nico wuxuu la daala dhacayaa la hardanka indhihiisa si uusan u seexan. AJ waxaa loo sheegaa in Nico iyo Janks midkood ay hurdo la tagtay. Markuu Nico u imaado wuxuu arkaa in Nico uusan seexan. Waxayna isku soo raaceen inay soo hubiyaan Janks inuu seexday iyo in kale. Nico iyo Janks labadaba way isaga shakisanaayeen inay seexdeen, balse markii far loo fiiriyay waxay hurdo la tagtay Janks. Waxaana markan soo haray Nico iyo AJ, labadooda ayaana noqday guulaystayaasha. Guud ahaan tartankan waxay ku qaadatay inuu dhamaado 30 saacadood oo u dhiganta hal maalin iyo 6 saacadood. Haddii sidan oo kale lagu xijeysto, intee saacadood ayaad soo jeedi lahayd? Fadlan haddii muuqaalkan uu ku cajibiyay like noo saar. Mahadsanid Jaale.